shakhsi magaciisa lagu sheegay sheegow oo ahaan jiray dhamme ama kabtan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaalida laakiin hadda maanta aan ka tirsanayn iyo ciidankaasu gurigiisa joogeen markii ciidankii la soo qabtay oo la xiray ayaa shakhsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii uu qalqal u galiyo uu u yiraahdo ciidan shaqo iigu jira laga dhibaatiyay taasa waxay sababtay in ay isku dayaan inay yiraahdaan ciidanka howlgalka ciiltire ayaanu la dagaalamaynaa sidaas ayaa howlgalku ku bilowday sareynta sharciga ahaa maantana falilaahi alxamdu waxaa gacanta lagu soo dhigay ex dhamme sheegow axmed cali oo hore uga tirsan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gacanta lagu hayaa eedeysana sheegow iyo ilaa 18 kamid ah eedeysanayaashii ama dhagarqabayaashii uu isticmaalayay si uu amniga xasiloonida iyo caasimadda u qalqal galiyo isaga kaliya ma ahana cid walba oo isku dayda in amniga xasiloonida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda qalqal galiso ciidamada ammaanka gaar ahaan ciidanka howlgalka ciiltire ee booliska military ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka waxay gacanta ku soo dhigayaan waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh qasaaraha meesha ka dhacay waa laba qof oo laba maleeshiyaadkii uu isticmaalayay eedeysana sheegow oo laba dhimasho ah hal askari oo ciidanka howlgalka ku jira ka dhintay dhaawacyaduna sidaas oo kale waa 2 iyo 2 ma jiraan wax qasaaraha dadka shacabka ah soo gaaray oo goobta ka agdhawaa howlgalkii xalay 9kii fiidnimo bilowday inuu saaka 3kii subaxnimo soo gabagaboobo falilaahi alxamdu waxay ku timaaday in la ilaaliyo qasaaraha oo dadka shacabka ah aysan meesha waxba ka soo gaarin sababtaas ayuu ilaa inta u socday haddana eedeysanihii iyo dhagarqabayaashii kale gacanta lagu hayaa waxaa dhaawaca ilaa 7 qof ayaa eedeysanaha dhaawac ka ah oo iyagana eedeysanayaal ah iyagana dambi bay galeen waxay mari doonaan cadaaladii mari doonaan laakiin waxay xaq u leeyihiin in la ilaaliyo xuquuqdooda isla markaana ay helaan gargaar caafimaad loo fidiyay ciidamadana gacanta ku haya haddana waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka waxaa kale too xusid mudan in eedeysana sheegow gurigiisu uu ahaa meel laga qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida caasimadda iyo degmooyinka ku hareeraysan degmadan Dharkeenley sidaas oo dhaca moobeelada inta badan dadka dhaca moobeelada lagu soo qabtaa ay gurigiisa soo galaan oo ay yimaadaan oo ay ku gambadaan sidoo kale markii gacanta lagu soo dhigay gurigiisa waxaa loogu tagay lacagta madow ee black money-ga ah ee la dhaqo oo iyaduna lid ku ah qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaala isagana waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha agabadka ah ama exhibit-ka ah ee aan maxkamadda awoodda u leh ku horgeyn doono guud ahaan maxaabiista la hayaa waa 25 qof 7 dhaawac ah isagii eedeysana sheegow iyo 17 kale guud ahaan waxay isku yihiin 25 kaas qof oo maxaabiista gacanta lagu hayo waxaa xusid mudan howlgalkii la dagaalanka burcadda hubaysan ayuu kan qayb ka ahaa howlgalka ciiltire uu qayb ka ahaa waxaana ahaa hirgelinta xasiloonida hirgelinta xeerka xakamaynta caasimadda hubka caasimadda cid kasta ay isku dayda inay hub la mamnuucay u isticmaasho caasimadda ama ku dhex isticmaasho ciidamadu waxay waajib cad u qabaan inay gacanta ku soo dhigaan in maxay ahayd ay maxkamadda awoodda la ku simaan hadda eedeysanaha iyo eedeysanayaasha kaleeto ee gacanta lagu hayo sida ugu dhaqsiyaha badan ayay waxay wajihi doonaan maxkamadda awoodda u leh ee halkaas oo lagu cadaalad marin doono si ay ugu noqoto fariin ugu noqoto ciddii kale ee isku dayi lahayd ama ku tala joogtay in magaalada hub aan la ogolayn oo isticmaasho ciddii isku daydana iyada ayaa cawaaqibka iyo dhibaatada halka ka dhacda qaadanaysa waa maasantii shirkeena jaraa'id maanta intaas ku saabsan yahay